السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود kusoo dhawaad Atom Graphics. Maanta waxaa bilaabeynaa tips and tricks yaryarka ee Adobe Photoshop iyo Adobe Illustrator wax badan ka baran doona. Maanta waxaa ku hormari doonaa Adobe Illustrator. Waxaan sameyn doonaa qaybta trickska ee distort tutorial si loo sameeyo. Ka waxaa soo sameysan doonaa shape-keen markaas aan u sameysano background-kiisa cadaan isaga dhig, stroke-giisana color-kaarta u yeel. Kadib stroke u badi, stroke markaas aan ugu badiso, kadib qoraalkaarta ku soo dhex qoranaysaa. anaga qoraalka ku qoranayna wax waaye magaceena la iska soo qaad dhaxda keen and then ku weynay wax yar markaas aan ugu weynayno waa isla dooranayna align center leedahay kadib qoraalkan waxa ka dhigaysaa hada text waaye outline ka dhigay saa uga dhigtid asaga dooranaysa right kaliya dhehe create outline dhehe markuu saan ku soo noqdo kadib qaybtaas brushka soo furanay markaas soo furatid qoraalki Atom waxa sameynaysaa drag and drop waa soo jiiday inta ku dhaxdeynay markaas ugu dhaxdeyso boxkan ku soo baxaya waxa ku sameynaysaa qaybtaas ka dooro art brush okay dah boxkan kale ku soo bood asagana qaybtaas dhexe adoo waxba ka bedelin okay siida sa u jeedid inta kugu soo darsamay markuu inta kugu soo darsamo qoraalkeena caadiga iska daleed kadib waxa soo qaadan doonaa line-kaas marka soo qaadano geeskaas ka bilaw ilaa geeskaas kee markaasaan drag ugu dhaxdo meesha dhigto qaybtan brush soo furo doontaa marka soo furato qoraalka ama soo gashata kili ku dhaxsiinay qoraalka sidaan meesha kugu soo dhaxgalay markuu sidaan meesha kugu soo dhaxgalo waxa soo dooranaysaa toolka la dhaho width toolka click siinaysaa qoraalkan oo line ku dhax qornay dhax bartamaha marka imaato meeshas intersectiga qabanaysaa kor u jiiday ama hoos u jiiday soo ma jeedid intaas marka inta rita ka dhigatid waa ka foqay hadda u jeedaa soo kugu soo baxay soo ma jeedid hadaarti background-kaas waa iska qaadi kartaa soo ma jeedido hadaartina waa ku deysanay background-kaas ka bixinay kadibna ma jeedaa saan ku noqonaa waxa rajeynaa distort iyo qaabka loo sameeyo wax badan ka fahamtay way jiraan qaabka loo sameeyo laakiin qaabkan waa qaabka ugu fudud aas dhihi karo waa lagu fahmi karaa kusoo dhawaada Atom Graphics hadaa hore inoo joogto muuqaalin like dhaxsiina share garay si asxaab adoo kale uga faa'iideystaan hadaa nagu cusubtaan soo follow garay waa maasan tahay